kulanti haboon idil ahaantiin badawadayaal meel weliba oo aad ka joogtaan daafaha caalamka halkan waa Raadsan TV waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhex xaluusnaa wadamada Israa'iil iyo Iran waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay halka ay kala marayaan labada dal ee markaasi sida weyn isu haya ee Israa'iil iyo Iran midba midka kale waxa uu ku goodinayaa inay qaadi doonaan warar kama dambaysa kuwaasi oo guud ahaanba lagu weerarayo deegaanada markaasi ay ka kala arabiyaan haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa qasaaraha ka dhashay kii xalay marka laga soo tago warar dhowr ah oo markaasi Israa'iil ay qaaday iyo sidoo kale Iran oo iyaduna jawaabtay wadamo dhowr ah oo iyaguna ka hadlay xiisadda labada dal ka dhexaloosan macluumaad guud oo umuurahaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa idawada haday tahay markaagii kugu horeysay aad halkan soo booqato subscribe noo saar noona like gare muuqaalka waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada anu soo baqaadno warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya macluumaadka laga helayo dagaalka labada dal ka dhexaloosan waa Israa'iil iyo sidoo kale Iran Iran waxa ay ku goodinaysaa inay qaadi doonto weerar kale oo laga shalayn doono kaasi oo ay ku qaadayso gudaha dhulka Israa'iil waxaana sarkaal sare oo markaasi Reuters ay soo xigatay isla markaana ka soo jeeda wadankaasi Iran uu sheegay inay qaadi doonaan weerar kale oo dhakafaar ah kaasi oo barbar socda weerar kale oo markaasi gaadma oo lagu qaadayo gudaha wadankaasi Israa'iil talabadan waxay u muuqanaysaa goodi beesha ugu dambeysay oo ay Iran ku goodinaysa inay qaadi doonto weerar kale oo kama dambaysa oo lagu qaadayo gudaha wadankaasi ka gadaal weerar dhowr ah oo ay xalay ku ekeeyeen fariisimo muhiim ah oo Israa'iil ay ku leedahay gudaha magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi garaan magaalada Tel Aviv ee caasimadda wadankaasi waxay u muuqanaysaa markan in xiisadu ay ka sii dartay isla markaana siyaabooyin kala duwan ay isugu goodinayaan dhinacyadu ayna isticmaalayaan markaasi warbaahinta waxaana la tilmaamayaa in wargeyska iyo telefishinka wadanka Iran uu baahiyay in weerar dhakafaar ah oo aan horay loo arkin ay qaadi doonaan waxaana ay isticmaalayeen erayo ay ka mid yihiin waxaana sugaya habeen dheer kaasi oo aanu adeegsan doono waxa markaasi aynu hayno ee awoodeena sidoo kale waxaa la soo baahinayaa warar dheeraada kuwaasi oo sheegaya in diyaarado drone ah oo aan horay looga isticmaalin dunida oo ay leedahay dowladda wadankaasi Mareykanka oo loo yaqaano F-35 kuwaasi oo aanan dunidu isticmaalaynin in lagu soo riday gudaha wadankaasi Iran waxay u muuqanaysaa in awoodii Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo iskaashanaya in guud ahaanba ay dhulka dhigtay maadaama ay soo riday diyaarad noocay ugu sareyso oo markaasi Mareykanka uu ku faanayay taasi oo uu sheegay in ay tahay mid casri ah kaliyana markaasi ay haysteen Israa'iil iyo Mareykanka wana awood kale markaasi oo Iran lagu tuumayo waxa la tilmaamayaa in wadamo dhowr ah oo markaasi kuba reer Yurub kamid ah in candhuuftoodu ay dib u laqeen kadib markii ay arkeen awoodda ballaaran ee ay xambaarsan tahay Tehran isla markaana aysan ahayn wadan aan lagu degdegi karaynin waxaa sidoo kale la soo warinaya in Iran ay gacanta ku dhigtay saraakiil sirdoon oo markaasi Israa'iil kuwaasi oo la tilmaamayo inay gaaf wareegayeen xarumo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaalada Tehran ee caasimadda wadankaasi Iran waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkan ay yihiin kuba culus oo markaasi Tehran ay qaadayso si looga hortago weerarada ay qaadayso Yuhuudda isla markaana la doonayo in lagu baabi'iyo guud ahaanba wadankaasi Iran dhaqdhaqaaqyadu waxaa la tilmaamayaa inay sii fidayaan isla markaana xulufooyinka ay xoogaysanayaan waxaa la isweydiinayaa haddaba xaggay ka baxeen qaar ka mid ah wadamadii xulufada ku ahaa Iran waa sida Turkiga iyo sidoo kale Russia oo iyaguna markaasi guud ahaanba si cadaanan u soo barbar istaagin iyo si muuqataba dowladda wadankaasi Iran oo markan siyaabooyin kala duwan weerar dhowrihii ay uga imanayaan dhinacyo kala duwan oo awoodyo military markaasi xambaarsan waxaa ka mid ah wadamada sida weyn ay isu hayaan Mareykanka Faransiiska UK iyo wadamo badan oo markaasi garab siinaya Israa'iil waxaase jira garabka Iran oo iyaguna guud ahaanba wadamadaasi waaweyn waa Turkiga Masar iyo Ruushka oo guud ahaanba garabkeeda marnaba aan soo buuxinin tan iyo weerarkii jimcihii lagu qaaday gudaha wadankaasi isla markaana lagu laayay saraakiisha tirabeelkaahi iyo saynis yahanada u dhashay wadankaasi Iran
waxaa la tilmaamayaa markan iiraan inay iyadu keliya awoodooda ay isugu geynayaan sidii markaasi ay isaga dhicin lahaayeen iiraan oo ay u arkaan inay tahay cadowga koobaad ee dullaanka ku ah gudaha waddankooda waxaana ay doonayaan markaan inay iska dhiciyaan tallaabo weliba oo ay markaasi usoo qaado gudaha waddankeeda waxay u muuqanaysaa in labada dhinacba ay isu biratumanayaan waxayna u muuqanaysaa tallaabo kale oo xoogan islamarkaana colaad cusub oo markaasi guud ahaanba dunida ka dhex beermi karta haddii dhinacyadan ay mar kale iswajahaan waxaa la tilmaamayaa oo xogan la helayona ay sheegayaan in marinka baabulmandab oo ah marin ka mida kuwa ugu muhiimsan ee markaasi ay isticmaalaan wadamada shidaalka dhoofiya guud ahaanba in markaasi ay maangal tahay in ay xiraan iiraan waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay uga gol leeyihiin guud ahaanba in la hakiyo dhaqdhaqaaq weliba oo markaasi israa'iil ay wado tallaabadaasi waxaa la tilmaamayaa inay halis ku tahay dunida guud ahaanba waxaana guud ahaanba korori karaba ama sare u ka xoogan uu ku iman karaa qiimaha shidaalka ee dunida 30% waxaa la tilmaamayaa in marinkaasi uu soo maro shidaalka laga isticmaalo dunida waana tallaabo culus oo markaasi xukuumadda Tehraan ay qaadayso haddii guud ahaanna ay ku guulaysato waxay noqonaysaa tallaabo kale oo ay wajahayaan xulafada Mareykanka oo iyagu markaasi la tilmaamayo inay ku jabi karaan dagaalkan culus oo ay ku qaadeen Iran waxaa la tilmaamayaa inay si weyn waardiyo uga hayso keedkeeda hubka nuclear-ka iyo kiimikooyinka casriga ee markaasi ay ku bacriminaysa awoodeeda militariga waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba ay bad qabaan howlgalladii lagu qaaday gudaha waddankaasi ee Israa'iil ay ku qaaday gudaha waddankaasi jimcihii waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba hubkeedu ay bad qabaan isla markaana aysan jirin wax la beegsaday oo ku qotomo guud ahaanba keybka hubka nuclear-ka ee casriga waxay u muuqanaysaa tallaabo kale oo markaasi fariin looga dirayo gudaha waddankaasi Tel Aviv oo dhibaatooyin xoogan iyo weerar ku soo qaaday gudaha Tehran awoodaha labada dhinac ayaa la tilmaamayaa in si weyn ay isaga agdhow yihiin waxaase la tilmaamayaa in kooxaha waaweyn ee markaasi islaamigii ee ka dagaalama gudaha deegaano ka mid ah bariga dhexe waxaa la tilmaamayaa in iyaguna birahooda ay tumanayaan isla markaana waxa maangala inay ku biiraan dagaalka ayna garab siinayaan dowladda islaamiga ee Iran waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinka ay xoogaysan karaan isla markaana dhinacyadu waxaa la tilmaami karaa in mar kale ay isfuutaari karaan waxaa laga baqanayaa dagaal foolka fool ah oo mar kale labada dhinac dhex mara waxaana xogaha qaar ay la helayo ay tilmaamayaan in xukuumadda Tehran ay si weyn uga dadaalayso sidii markaasi ay u ilaashan lahayd keedkeeda hubka nuclear-ka iyo bacriminta markaasi ku soconaysa waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba goobahaasi si weyn loo ilaalinayo saraakiil sarsare ayaa la tilmaamayaa durbaba inay magacowday dowladda waddankaasi Iran si ay u hogaamiyaan dagaalka ka dhanka Israa'iil ee markaasi ay ambaqaadeen si loo gaaro guulo muhiim ah oo wax ku ool ah oo markaasi militariga lagu hogaaminayo Israa'iil mar kale ayaa waxa ay doonaysaa inay qaado weerar kadis ah kuwaasi oo aan la shaacin waxaa la tilmaamayaa in weeraradaasi ay noqon karaan kuba culus xukuumadda Tehran ayaana la tilmaamayaa in dhankeedu si weyn ay arrintaasi uga fajigan tahay ayna muujinayso dadaallo xoogan oo markaasi ay arrintaasi uga hortagayso waxaa muuqanaya guud ahaanba in isbahaysiyo ay soo muuqanayaan kuwaasi oo suurta gelin kara in dagaalkii saddexaad ee dunida uu qarxo maadaama dhinacyadu si weyn ay isu garabsanayaan dagaalkuna waxa uu noqon karaa mid u dhexeeya gaal iyo islaam waana dagaal culus oo markaasi dhici kara sida ay saadalinayaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha dibadda marmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ayaa la tilmaamayay inay u socday khilaaf xoogan oo markaasi salka ku haya awoodeeda uraniumka ee ay baxriminayso dowladda waddankaasi Tehran waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba kuwaasi ay noqonayaan kuwa ugu awooda badan ee markaasi ay haysato waxaase guud ahaanba Mareykanka iyo xulafadiisu ay dhakafaar ka muujinayaan tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Tehran ee markaasi ay dhabarka uga toogatay Israa'iil kadib duulaana dhinacyo badan taabanaya oo ay qaaday laguna beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha waddankaasi waxaase jira Pakistan inay qaaday tallaabo culus waana tallaabadii ugu horeysay oo ay qaadaan wadamada islaamka waxa ay sheegeen gaar ahaan ra'iisul wasaarahooda uu ku dhawaaqay guud ahaanba in Israa'iil waxa ay wada ay dhaafsan yihiin daandaansi isla markaana ay tahay fidnada kaliya ee ka abuuran dunida islaamka waxaana uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin markaasi ay ku garabsiinayaan xukuumadda Tehran waxay u muuqanaysaa tallaabo culus iyo garabyo siyaasadeed oo markaasi Iran ay helayso qaar ka mid ah
wadamada markaasi dunida islaamka iyo kuwa kale ee markaasi awoodda iyagu isbidaya ee caalamka. waxay u muuqanaysaa tallaabooyinkan kuwa markaasi xoogeystay oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan u jiray. xukuumadda Tehran waxa ay doonaysaa inay markan qaado tallaabooyin culus oo ay doonaysa in Netanyahu iyo xulafadiisu ay ka shalayaan, isla markaana ay ku beegsanayso keedka hubka casriga ee nuclear-ka. waxaana la tilmaamayaa in sidoo kale ay doonaysa in gantaalla ay ku weerarto gudaha waddankaasi Tel Aviv. guud ahaan intaasi ayaan kusoo amiraya daawadayaal, tan iyo kulan dambe nabadeen.